بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo amaalin khamiisa taariikhduna tahay 22 bisha Juun sanadka 2017 miilaadiga kuna beegan 27 bisha Ramadaan sanadka 1438 hijriyada waxaad ku soo dhawaataan wararka saacadlaha ee BSS TV waa telefishin ku hadla Afka Boqortooyada Soojireenka Soomaaliya. Boortaqiiska wararka ka imaanaya dalka Boortaqiiska ayaa sheegaya in maxkamad ku taala dalkaasi ay go'aamisay inuu maxkamadda yimaado Manuel Vicente oo ah madaxweyne ku-xigeenkii dalka Angola. Manuel Vicente ayaa waxa wararku ku soo waramayaan in dacwada loo heesto ay tahay inuu isku dayayay inuu laaluusho garsoorayaal kuwaas oo la sheegay inuu doonayay inuu joojiyo dacwad musuqmaasuq ee asiga loo heestay. wakaalada wararka ee AFP ayaa sheegtay in Manuel Vicente uu laaluusiyay Orlando Figuer oo horay u ahaa dacwad ooge. Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wada hadal xagga telefoonka ah la yeeshay dhaxal sugaha cusub ee dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman. Trump ayaa Mohammed bin Salman ugu hambalyeeyay mas'uuliyadda cusub ee loo dhiibay asigoo sidoo kale kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka dhex taagan dalalka Khaliijka iyo Qatar. waxa uu madaxweynaha dalka Mareykanka ka codsaday Sacuudiga inay si degdeg ah wax uga qabtaan arinta ka taagan Khaliijka iyo Qatar. We're thinking of something that's unique. We're talking about the southern border. Lots of sun, lots of heat. We're thinking about building the wall as a solar wall so it creates energy. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay asigoo ka qudbeynayay fagaaraha Iowa inuu qorsheynayo in darbiga ay ka dhisayaan xadka Mexico ay ku xirayaan qalab dhalinaya korontada. Trump ayaa sheegay in haddii qalabkaasi korontada dhalinaya lagu xiro darbiga ay doonayaan in xadka ay ka dhisaan laga heli doono qarashkii ku baxay dhisida darbigaasi. wararka qaar ayaa sheegaya in qalabkaani uu Trump sheegay ay horay taladaasi u soo jeediyeen qaar ka mid ah shirkadaha ku tartamaya in ay ka qayb qaataan dhisida darbigaas. daawadayaasha waxa ay aragtidoodu ku aadan qalabka korontada dhalinaya ee Trump uu sheegay inay ku xirayaan darbiga ay doonayaan inay ka dhisaan xadka Mexico ka soo dhiiban karaan baraha bulshada sida Facebooka, Twitterka, YouTubeka. waxa halkaas inooga ag warkii saacadlaha ahaa oo aad kala socoteen telefishinka BSS TV oo ku hadla Afka Boqortooyada Soojireenka Soomaaliya. ciddii uu dhaafo waxa ay kala socon karaan barta aan ku leenahay internetka oo ah www.bssomalia.tk.